ma ka mid tahay dadka nasiibka badan ee uu soo baxay goos caqliyeedka? Goos caqliyeedka waa gooska ugu dambeeya ee qofka uu soo baxa. Tir ahaanna waa 4. Ani ahaan haa dhammaantood way soo wada baxeen alxamdulillaah. Adiga daawanaya muuqaalkan inay ku soo baxeen iyo in kale qaybta hoose ee faallada igu la wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Si aad muuqaalka hordhicisa ka soo aragtaybo, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo waxa caafimaad ahaan loo yaqaan wisdom tooth oo ah goos caqliyeedka. Goos caqliyeedka waa gooska ugu dambeeya ee qofka uu soo baxa. Waana tir ahaanna waa 4. 2 ku yaalan xagga sare iyo 2 ku yaalan xagga hoose. Marka inta badan da ahaan waxay soo baxaan inta u dhaxaysa 17 sano ilaa 25 sano. Dhammaan dadkana ma soo wada baxaan oo waxaa la dhahaa inta badan dadka lakiga ah ama dadka nasiibka badan ay u soo wada baxaan goos caqliyeedka. Run ahaantii markay soo baxayaan qaabab kala duwan ay ku soo kala baxaan. Qaar waxaa laga yaabaa ayagoo qaloocan inay soo baxaan, qaar waxaa laga yaabaa inaysan soo bixinba, qaarna waxaa laga yaabaa in dhammaantood ay soo wada baxaan. Waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah noocyada loo kala qaybiyo goos caqliyeedka ayadoo lagu saleynayo soo bixitaankooda. Nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa complete eruption wisdom tooth oo ah in dhammaan goos caqliyeedka uu soo wada baxo. Goos caqliyeedka inuu soo wada baxo dhammaan dadka uma soo wada baxo, waliba asigoo toosan oo nadiif ah dhammaan dadka ay soo saas ah uma soo wada baxo oo waxa inta badan uu soo wada baxaa dadka nasiibka badan. Nooca labaad waxaa loo yaqaanaa partial eruption wisdom tooth oo la micnaha in qayb ka mid ah goos caqliyeedka uu soo baxo. noocan inta badan wuxuu keenaa caabuq ka mid ah caabuqyada ku dhaca ciridka oo loo yaqaan pericoronitis. Waa in caabuq ku dhaca ciridka gaar ahaan qaybta u dambeysa ciridka. Marka caabuqan loo yaqaan pericoronitis waa inuu caabuq ku dhaco ciridka hareereeyo goos caqliyeedka. Marka waxaa dhacayso in goos caqliyeedka uu ka sara maro cirid kadib ciridkaasna uu noqdo guduud ama casaan kadibna qofka uu ku keeno xanuun zaid ah. Sidoo kale waxaa jira nooc saddexaad oo loo yaqaan impacted wisdom tooth oo la micno ah goos caqliyeed aan soo bixin balse gudaha lafta ku jiro. Inta badan goos caqliyeedkan aan soo bixin waxaa sababo inuu space ku filan uu waayo, gaar ahaan dadka ciridkooda uu yar yahay. Marka space ama firaaqo ku filan ama meel uu ka soo baxo markuu waayo goos caqliyeedka, marmarka qaar waxay noqotaa inuu noqdo impacted wisdom tooth oo gudaha lafta iskaga jiro. Inta badan wax dhibaato ah ma keeno, balse marmarka qaar laga yaabaa inuu dhibaatooyin halis ah kugu keeno, sida inuu dhaawac gaarsiiyo goosahada kale iyo inuu goobaabin ku sameeyo meeshii ka soo bixi lahayd wisdom toothka, ama wax loo yaqaan cyst inuu meeshii ka sameysmo kadibna uu kugu bilowdo xanuun halis ah. Balse inta ugu badan 90% wax dhibaato ah ma keeno, qofkana xanuun kuma keeno oo meeshiis ayuu iskaga jiraa. Sidoo kale waxaa jira nooc kale oo afraad oo loo yaqaan congenital missing wisdom tooth oo la micno ah in dhammaan goos caqliyeedka uusan soo bixin isla markaana gudaha lafta uusan ku jirin. Dadka qaar ayaa xaaladda nooca loogu arkaa inuu goos caqliyeedka u soo bixin ayagoo 25 sano dhaafeen haddii raajo loo dirina la arkin in gudaha lafta uusan ku jirin wax goos ah. Marka waa xaalad normal ah ama xaalad caadi ah. Marka waxaa jira si guud ilka loo yaqaan congenital missing oo si guud waxaa laga yaabaa marmarka qaar in dadka qaar ilkaha noocaas ah aysan u soo bixin oo ay ka maqnaadaan. Ilkahaasi waxaa ugu caansan iliga loo yaqaan lateral incisor ama iliga loo yaqaan dhoolasha, waliba dhoolasha sare. Iyo sidoo kale number 2 goos caqliyeedka ama wax loo yaqaan wisdom tooth. Run ahaantii labadan ilig waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee si caadiyan iskaga maqnaado ama congenital missing ayaa loo yaqaanaa. oo marmarka qaar waxaa laga yaabaa inay guud ahaan afkaada aysan ka soo bixinba. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa goos caqliyeedka ma la daaweyn karaa haddii uu xanuun igu keeno? Su'aashaas jawaabteeda si fudud haa waa la daaweyn karaa, balse waxay ku xiran tahay xaaladda uu gooskaas markaas uu ku sugan yahay. Muuqaalka soo socda ayaana si faahfaahsan uga hadli doonaa qaababka kala duwan ee loo daaweeyo goos caqliyeedka. Muuqaalka xiga ayaan ku sharxi doonaa qaababka kala duwan ee loo daaweyn karo goos caqliyeedka. balse si aad muuqaalkaas ula socotid ku soo bir akoonkayga si uusan ku dhaafin muuqaalkaas iyo muuqaalada xigaba. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan, waxaan mar kale ka codsaday inaad muuqaalkan like saarto sidoo kale tan aad la wadaagtid saaxiibadaada.
si ay ayagana ugu faa'iidaystaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.